waxa uu yahay kalsooni sidee baan nafteeda ugu abuuri karaa waana qodobka runtii ay maanta rabno aad inaan runtii u dul istaagno daawada hadii aad rabto naftaada kalsooni inaad ku abuurto oo kalsooni aad hesho si aad mustaqbalkaaga u hagaajiso qodobka koowaad sameynaysa waa maxay inaad naftaada barato marka ugu horeysa waa inaad buug qalan qaadataa waa inaad isweydiisaa naftaadu maxay ku fiican tahay maxay ku xun tahay waa inaad soo saartaa labada dhinac waa inaad ka eegtaa waa inaad qortaa wax alla waxay naftaadu ku fiican tahay sidoo kale waa inaad qortaa wax alla waxay naftaadu ku liidato ee dacfiga ku leedahayna waa inaad qortaa maxaa markaa ku soo baxaya shakhsiyadaada baa ku soo baxaysa oo markaad sida naftaada u ogaato oo naftaada aad barato maxaa imaanaya hadii dadku wax ka sheegaan oo qofku yiraahdo niyow adigu waxa tahay waxbarashada kuma fiicnid maxaa ku soo baxaya doori naftaada wad ogtahay haduu waxan uu ka sheegay uu run yahayna waad is ogtahay hadii ay been tahayna oo waxan uu ka sheegay ay been yihiina dhagba u dhigimaysid ila waad is ogtahay marka naftaada horta inaad ogaataa waa qodobka koowaad naftaada daawada markaad ogaato maxaa ku xigaya waxa ku xigaya inaad dajiso waadigan ogaadaye istiraatiijiyada aad ku bedelaysaa eed ku hagaajinaysaa waa maxay markaad ogaato meelaha aad ku liidato maxaa laga rabaa inaad isweydiiso sidee baan kor ugu qaadi karaa meel aan ku liito sidee baan u hagaajin karaa waxbarashadii baan ku liitaa Soomaha sidee baan u hagaajin karaa marka waa inaad ka fikirtad ogaajin lahayd meelaha ku fiicanta maxaad isweydiinaysaa meelaha waan ku fiicanahay sidee baan iyagana kor uga sii kici karaa oo u sii xoojin karaa ay isweydiinaysaa marka maxaad samaysay istiraatiijiyadii baad dejisay naftaada ku hagaajin lahayd dabada inta waxa ku raacaya marka naftaada ogaato naftaada inaad aqbasho oo raali ka ahaato suuradu ilaahay ku abuuray qaabkaad u eeg tahay dhaqaalaha intaad haysato aqoontaada halkay taagan tahay wax kasta markaad ogaato waana aqbashaa waa inaad raali ku ahaato halka aad taagan tahay kadibna aad isku daydaa inaad kor uga kacdo haddii aanad raali ku noqon muuqaalku ilaahay ku siiyay maxaa imanaya inaad warwar walaac ka buuxeedo markasta oo aad dadka saaw eegto oo dadku wax ka sheegaan in la runtii aad gubataa imanaysa laakiin naftaada iyo muuqaalkaaga markaad raali ku noqoto maxaa imanaya in naftaadu ay degto oo raali ku ahaato marka dawada maxaa laga rabaa qodobka kood wuxuu tilmaamayaa waana qodobadii baan ku jirnaa tilmaamayay qaabka kalsoonida loo abuuray wuxuu tilmaamayaa koowa inaad naftaada barataa waxaad ku fiicantahay waxaad ku xuntay waana ogaataa kadibna waa inaad samaysaa istiraatiijiyadii qaabkii aad ku hagaajin lahayd naftaada hadii inta ka bacdi dadku wax ka sheegaan waxba ka ma gelin sababtu waa maxay naftaadii waad baratay waxaana dajisay waxaad ku hagaajin lahayd daawada qodobka labaad wuxuu yahay in naftaada runtii hal kalsooni ugu abuuri kartaa inaad dajiso ahdaaf aad xaqiijin karto ujeedooyin ahdaaf aad xaqiijin karto oo suurtagal ah inaad dajiso ayaad ku sameyn kartaa kalsooni waliba ahdaafta marka aad dajiso waa inaad isku daydaa inaad ahdaafta maalintiiba in yar aad xaqiijisaa in yaro ahdaafta kamida waa inaad isku daydaa inaad xaqiijiso maxaa arinta ka dhalanaya markaad maanta hadaf aad dajisay aad in kamida xaqiijiso maxay intaasi kugu abuuraysaa kalsooni maxaad ogaanaysaa inaad wax qabsan karto بريتولا مركا لقارو استراده halkii ka sii wada istiraada hadafkii maxaa imanaya naftaadu markiiba waxa ku soo dhacaya shalay toolaba waadiga hadafka wax ka qabtay oo wax ka xaqiijiyay ee maanta wax ka qaban karta taa macnaheedu waa maxay kalsooni baad heshay saadalada daawada wax la yiraahdaa bal qaacidada asalka waa kalsoonida wax weeyaan marka la abuurayo wax la yiraahdaa waa qaacidada ficilka hadaad rabto naftaada kalsooni inaad ku abuurto waa inaad ficil la timaado markaad wixii qabato maxaa imaanaya naftaadu inay aaminto wax inay qaban karto بريتولا وحيو كلا مكاي aad la kulanto istira mar labaad qabo maxay naftaada oranaysaa shalayba waad qabatay maanta waad qaban kartaa marka maxaa heshay kalsooni baad heshay taasi wax la waa qodobada aadka u muhiimka ah ee qofku inuu ficil la imaado ficilkii maanta markuu qabto maxaa ku dhalanaya qofkii kalsooni baa ku dhalanaya laakiin sadawada halkan qodobo muhiim ah la socda oo waa maxay ficilkan aad qabanaysaa ama hadafkan aad rabto inaad xaqiijisaa waxaad isku daydaa marka hore inuu yahay waxaad gaari karto waxaanad gaari kareen oo kugu adag hadafka ka dhigan sababtu waxay tahay hadaad wax aad u sareeya oo adagtay inaad gaadhaan hadaf ka dhigato markaad gaari weydo maxay manaya niyad jab baa imanaya kalsooni darro imanaysa saadaradeed maxaa lagu leeyahay markaad hadaf dejiso hadafka waa inaad jajabisaa qaybo waa inaad u qaybisaa qaybta ugu fudud ku bilow eed qaban karto qaybta markaad qabato maxaa imanaya in runtii qaybaha kale ay ku fududaadaan bal waxa la iraahdaa qalbiga
culimada ku takhasusay psychology waxa yiraahdaan inta badan qofka waxa ugu wacan warwarkiyo walaac waxa ugu wacan markuu qofku hadaf weyn dejiyo maxaa imanaya inuu isla hadafka gaadho markaad runtii dejiso standards markaad dejiso atira halkaasan gaadhaya maxaa isku daysa inaad gaadho markaad gaadhoodo maxaa imanaya waxa imanaya warwar iyo walaac iyo inaad walbaharta imanayso maxaa markaa laga rabaa laba mid waa inaad samaysaa ama waa inaad runtii la timaada action iyo ficil aad u weyn dadaal aad u badan waa inaad keentaa oo meesha aad dejisay aad ku gaadho waa inaad la timaadaa istiraatiijiyad aad u khatar ah waa inaad la timaadaa oo ku xaqiijin karto ama hadana taay la imi karan maxaa laga rabaa standardkii iyo hadafkii aad kor u qaaday hoos waa inaad u soo dhigtaa saad u xaqiijiso haddaanad hoos u soo dhigin maalin kasta waxa weey runtii waxaad ku jiraysaa daqdi naftaadu ciriiri bay dareemaysaa markaas naftu maxay xasuusanaysaa inay gaadhi weydeen meesha ay u socotay dawada qodobka marka aad samayso waxa kale laga rabaa markaad shaygii aad qabato ee ficilkii aad la timaado maxaa laga rabaa waa inaad naftaada xasuusisaa maalin kasta inaad wax qabatay naftaadu marka si xasuusto waxa inaad qabatay maxaa imanaya wixii inaad kalsooni ku hesho tusaalada wada aan ku siiyo kaba soo qaad xaflad baa lagu yeedhay waxa lagu yeedhay xaflada ka hadal marka ugu horeysa xaflada aad ka hadlayso naftaadu maxay isweydiinaysaa waxay isweydiinaysaa xaflado hore may ka soo hadashay haddii aad xaflado hore aad ka soo hadashay ay jiraan ama meelo noocaas oo kale ka soo haday jiraan naftaadu kalsooni bay ku abuurayaan laakiin hadday tahay markii kugu horeysay hadday tahay arintaasi maxay imanaya in runtii aad markiiba dareento runtii walaac iyo warwar iyo runtii wax la mid ah dareento oo laga yaabo in kuba fashilanto inaad meesha ka hadasho siradeed maxaa laga rabaa marka aad rabto inaad meelo waaweyn ka hadasho markiiba isku qaadin meel weyn oo public ah inaad ka hadashay waxa isku daydaa galaaska aad dhiganayso iskuulka inaad ardayda la hadasho barta ka soo bilo maalinta ugu horeysa halka markaad ka hadasho maxaa imanaya kalsooni yar inuu ku abuuranto maalinta labaad meel kale ma ka tagto sida ka hadal naftaadu markay soo istaagto maxaa ku soo dhacaya waxa ku soo dhacaya hore meel hore may uga hadashay maxaa markaa soo baxaya inaad meel hore ka hadashay galaas aad ka hadashay si fiican aad uga hadashay arintaas marka kugu soo dhacdo maxay naftaadu sheegaysaa kalsooni bay kuga abuuraysaa meeshii labaad markaa sira ka hadal si fiican baad uga hadlaysaa sababtu waa maxay tajribo hore aad haysataa tajribo hore waliba aad naajixa oo fiican baad haysataa سرادراد wax la yiraahdaa qofku markuu rabo inuu kalsooni naftiisa ku abuuro waa inuu sameeysaa intaas oo tajribo oo wanaagsan oo runtii u noqdo khibrad oo markasoo israado waxa sameey naftiisa dib ugu soo celiya waxa hore inuu u sameeyay kadib naftiisu markay waxa soo celiso waxay ogaanaysaa wax kasto waxa lamida naftiisu inay sameyn karto ayay ogaanaysaa marka muxuu helayaa kalsooni buu helayaa dawada qodobkaasi waa qodobkii labaad qodobka saddexaad ee kalsooni aad naftaada ku abuuri kartaa waxa weeyaan inaad isweydiiso waa maxay khatartan aan ka baqanaya inta badan qof markay kalsooni darro ku dhacdo macnaheedu waxaan baqasha ku jirta wax ka baqanaya imtixaanka inuu galo wuxuu isla wad ku fashilmaysaa waxa laga yaabaa isla ganacsiga ha galin waxa laga yaabaa ku khasaartay marka maxay meesha baqasha jirta marka hadda arinta xal u rabto maxaad isweydiinaysaa horta maxaa ka baqanaya markaad ogaato waxaad ka baqanayso ay waxaad isweydiinaysaa waxa aan ka baqanayo sidee baan uga hortagi karaa markaad ogaato sidaad uga hortagi karto ay arintaas ku soo baxdo isla maraxaantaaba waxa ka tagaya kalsooni darradu way ka tagaysaa dawada tusaale aan ku siiyo kaba soo qaadba wax lagu imtixaankii bad galaysaa markiiba waxa kugu bilaamay kalsooni darrada waa kugu bilaamantay wad warto waxaas tiri war bilaad ku dhacday imtixaanka baqashada waa kugu bilaamantay baqashada kugu bilaamtay sidoo xalin kartaa inaad isweydiiso maxaan ka baqanaya imtixaanka hadii aan galo maxaan ka baqanaya marka maxaad oranaysaa waxaan ka baqanayaa maadaama imtixaanka aanan diyaarin waxaan ka baqanayaa imtixaanka inaan ku dhaco maxaa markaa ku soo baxay inaad imtixaanka aanan diyaarin inaad ka baqanayso arinta darteed inay sabab u noqoto inaad dhacdo marka maxaa laga rabaa istiraatiijiyad ku saxlad arinta samee oo waa maxay imtixaanka diyaari imtixaanka marka hadaad diyaariso maxaa imanaya inay kalsoonida ku soo noqoto in baqashada ay ka tagto kadibna imtixaankii aad gasho adigoo aad wanaagsan saadaradeed waxa la ilaahdaa qofku markuu kalsooni darro hayso waa in isweydiiyaa kalsooni darradan maxaa keenay soo baqasho ma keenin oo waxaan ka baqanayo maxaan uga baqanayaa kadib wuxuu ka baqanay waa inuu xalliyaa markuu xalliyo kalsooni ayuu helayaa dawada arinta waxa la mid ah oo arinta qodobka raacaya markaad rabto kalsoonida inaad naftaada runtii ku abuurto waa inaad noqotaa qof qaata riskiga
riskiga waa inaad qaadataa meesha islaada waad runtii meesha waad ku dhacaysaa haddaad markasta ka istaagto haddaad markasta khatarta ka baqato oo tiraawaniyo ganacsiga gali maayo oo riski buu leeyahay ka gali maayo riski buu leeyahay haddaad markasta saa uga baqato kalsooni darraa kuga abuurmaysa meel lama gaadhisid weligaaba ganacsi ma geli kartid maxaa markaa laga rabaa daawada waxaa laga rabaa riskiga inaad qaadato oo sidee baad u qaadanaysaa waxaad u qaadanaysaa marka hore waxaad isweydiinaysaa riskigaan ka baqanaya intee in leeg baa suurtagal ay tahay inuu dhacayo isagii baad analysis ku sameynaysaa waad taxliilinaysaa waad la fakuraysaa waxaad eegaysaa inteebu macquul yahay oo dhici kara haddii aad aragto inuu runtii riskigan uu dhacayo dawad ka istaagaysaa laakiin se haddaad u aragto inuu aad u yartahay inuu dhacaa maxaad sameynaysaa riskiga waad qaadanaysaa hawshiina waad gelaysaa marka qodobkaasina waa qodobada lagu xaliyo kalsooni darrada mar alla markaad riskiga qaadato maxaa imanaya kalsooni baad helaysaa dawada qodobkan waxaa raacaya oo isaguna la mid ah oo ah waxyaalaha lagu xaliyo kalsooni darrada inaad go'aamada qaadato markaasoo go'aamada badiso inaad qaadato waa markaasoo kalsooni aad helayso sababtu waa maxay markasta khibrad bay naftaadu helaysaa go'aan markaad qaadato khibrad baad ka helaysaa markastoo khibrad dheeraada aad heshana waa markastoo kalsoonidaadu ay sii runtii abuurmayso sii runtii dhismayso weeyaan marka go'aamo inaad qaadato laakiin sadawada waxa shardiya go'aamada marka aad qaadanayso waa inaad la fakurtaa waa inaad dhinac walba ka eegtaa waa inaad ogaataa go'aankaad qaadanaysaa inuu u dhow yahay kii saxda ahaa markaad arrinta dhinac kasta ka eegto eed ku qanacdo eed runtii kala hufto inta xaleed haysato go'aanka saxda markaad qaadato waa inaad ku adkaysataa markaa maxay imanaya kalsooni inaad hesho bale waxa la iraahdaa waxyaalaha runtii ugu muhiimsan ee kalsoonida keena waxa kamid ah qofku inuu waxa la iraahdaa fashalka inuu tajriba ka dhigto fashalka inaad ka faa'iideysato haddii aad tiraahdo waad fashilmaysaa markasta maxaa imanaya kalsooni darro marka maxaa laga rabaa inaad isku qaado meelo badan oo laakiin hadduu fashilku soo gaadho tajriba aad ka dhigato khibrad aad ka dhigato experience aad ka dhigato aad ka faa'iideysato oo kor uga socoto sababta xaqiiqada la ogaaday wax weeyaan qofku ilaa uu fashilmo guusha dhabta ma gaadhayo marka aad fashilanto ayaa waxaad isweydiinaysaa maxaan u fashilmay kadibna sababku markuu kuu soo baxo aad kor uga sii kacaysaa dawada qodobkaasi waa qodobkii saddexaad qodobka afaraad ee lagu daweyn karo runtii kalsooni darradu daawada wax weeyaan inaad runtii akhrido dadka guuleystay dadka runtii wax qabsaday taariikhdooda inaad akhrido waa qodob aad u muhiim ah dad baa soo rafaaday dad baa guuleystay caalamkan oo laakiin guusha waxay ku soo gaadheen rafaad iyo dhibaato iyo halgan bay ku soo gaadheen markaad ogaato inay jireen dad adiga kula mid ahaa oo waxan gaadhay oo runtii halgamay naftaada arrinta maxay ku abuuraysaa kalsooni bay ku abuuraysaa naftaadu waxay isweydiinaysaa war dadkaasiba way gaadheen ahdaaftoodii way gaadheen aniga maxaa ii diidaya anigu miyaanan la mid ahayn isku maskax maanan ahayn waan gaadhi karaa maxaa markaa imanaya marka qisaska iyo sheekooyinka dadka akhrida guuleystay waxa imanaya naftaadu inay kacdo kalsooni inay hesho kadibna ay dhaqaajiso waxa kaloo daawada la mid ah arrinta oo qodobkaasi raacaya afraad ee hadda aynu sheegayno inaad runtii aqoontaada kor u qaado ثقافة كورنا دقاتو مركز أقونت كورو قاتو ومركز كالسوني هليسو مركز وحن أبرتين كما سوقت أكونت ما برتين أكونت كه برتين هذه أذكر ده إن تكون قطوف خبير أو يسقى وحلقة ويديو هذه أذكر ده شيء ما حد هلسه كالسوني بده هلسه واحد أوجانس مر الله مركز أكونت لقى هذا إن تهاي قفك أوجمضان أهينو كهذا ما مركز هذا شيء كالسوني بده هالشيء سيدا بدو هالشيء أقوم بعد كل هالشيء شيء جبت أهل برتين أبد أو أكونتي سو بعده كتبتي سو بعد آخرتي waxaad markaa heshay runtii kalsooni saa daraadeed dawada waxa laga rabaa hadii aad kalsooni rabato inaad hesho shaqada aad ku hesho waxa isku dayda waxa aad ka shaqeynayso inaad noqoto qofka ugu fiican ugu khibrada badan maxaa markaa imanaya kalsooni baa imanaysa cid kastoo wax ka weydiisa interview hadii laga qaadayo imtixaan hadaad galayso waxaad noqonaysaa qof si caadi ah uga jawaaba sababtu waa maxay naftaadu waxay yaqiinsan tahay in khibradeedii ay aqoonteedii leedahay dawada waxa la mid ah oo qodobka raacaya oo waxyaalaha keena kalsoonida runtii kamid ah ee isla aadka u muhiimka in runtii isku dayda daawada inaad raacdo dadka runtii la iraahdo waa positive-ka qaabka positive-ka dadka u fakaraya qaabka wanaagsan dadka u fakaraya dadka dhiirigeliya dadka runtii muxuu ahaay ku sameynaya dhiirigelinta inaad dadka noocaas raacdo dawada qodob aad u muhiim ah iska ilaali daawada hadaad rabto kalsooni naftaada inaad ku abuurto inaad raacdo dadka inta badan runtii aad oranayso waa negative ayay runtii yihiin wax kasta waxay ka yeegan dhinaca xun
wax kasta waxay ku oranayaan waxa lama qaban karo waxaasi waa adag yihiin waxaasi suurtagal maaha dadka qaabka u sameeysan ee laga yaabo dalka inaanay runtii jeclayn dalka inay leeyahay waxba ma yaalo dalku waa kan wax kasta laga yaabo in dhinaca xun ka eegaan dadka noocaas ah hadaad la saaxiibto oo raacdo maxay imanaya adiguna qaabka inaad u fakirto naftaadu ay tiraahdo meesha shaqo ma taalo shaqo lama helayo waxbarasho ma taalo kelimo yaalo aakhirka aad runtii halka istaagto oo dhaqaaqi weydo dawada qodobkaasi waa maxay waa qodobkii afraad dawada qodobka shanaad waxa weeyaan hadaad rabto naftaada kalsooni inaad ku abuurto dawada waxa laga rabaa muuqaalkaaga inaad hagaajiso qaabka muuqaalkaaga dharkaaga had xiran tahay waana hagaajisaa sababta muuqaalka marka aad hagaajiso naftaadu kalsooni bay siinaysaa oo qofkan runtii dadkan aad la kulmaysaa inta badan dadku waxay eegaan qofka muuqaalkiisa iyo dharku xidhaya marka soo dharkaaga xirantay waxa uu nadiif ay yihiin maxaa imanaya dadkina runtii ku soo dhaweeyaan taasi maxay keensanaysaa adiga naftaada kalsooni inay hesho marka isku day markasta inaad qof nadiif ah oo labiskiisu u fiican yahay inaad ahaato dabada qodobkan waxa raacaya markasta isku day kalimaadka adeegsanaysaa كلمات في عني نقطة كلمات رنتي رجلنا أي نقطة كلمات كنيجاتيف كايس كإلالي واحد أنت بدأ استعماشها كلمات كتلمام هاي إن تقول سنيسو إن الميل قارسو إن ذو حقرسن كرتو إن تكرتل هذاي إن أقول هذاي كلمات كنوعات تلمام هاي رنتي تفاؤل كتلمام هاي كلمات كنوع عصبادي حتى تكون بديسو مسكح هذا الجليان مسكح مرك الجلان محي منايا درين كاجا إن الجلان درين كاجا مرك الجلان وحي منايا سلوك كاجا كان وحكي بدلان طب القضب كوجود ما يكسو كوبنا وحويا التلمام ما يقابب كرنتي اللي قصة مايو كالسوني ذا اللي قصة مايو وقضب كهجوم مهمسا بل هو قضب كان أورانكرو وككلية هذه التي ماتوا بقول كيف بقول كالسوني كو أبو راي طب القضب كاسي وحويا إن كالسوني ذا قاعدته إلهي سبحانه وتعالى إن مركز أكتو إلهي سبحانه وتعالى وحات ثمانيسو رالي مكيه halkaad ka eegayso dadku raali ma ka yihiin dadku maxay ka sheegayaan dadku talow maxay ku oran doonaan oo kalsoonidii dhinaca dadka aad ka eegi lahayd dhinaca ka daa waxaad ka eegtaa wax ka soo qabanayso go'aan markaad qaadanayso waxaad isweydiisaa ilaahay raali ma ka yahay si kala dawada hadaan kuugu dhigo waxaad isweydiisaa go'aankan aad qaadatay aakhira maxkamadeeda marka lagu soo taago ma ka jawaabi kartaa intaasoo kaliya hadaan markaas isweydiiso maxaa imanaya kalsooni baad helaysaa markaad ogaato go'aankan aad qaadatay inaad aakhirada ka jawaabi karto maxaa imanaya inaad ku dhaqaajiso marka noloshaada lagu isbedelaysa noloshaada dhan hadaad ku salayso wax kasta oo qabanayso aad ku salayso inaad ka eegto ilaahay subxaanahu wa ta'aala arintan ma ogoliya raali ma ka yahay aakhirada ma ka jawaabi kara hatta noloshaada oo dhan go'aamadeed qaadanayso oo dhan arinta aad ku salayso waxaad helaysaa kalsooni dadka kama baqanaysid isma oranaysid dadku talo maxay ka sheegayaan isma oranaysid dadku maxay ku amaani waayeen isma oranaysid dadku maxay iileen sida iyo sida sababtu waa maxay kalsooni baad qabtaa kalsoonida xaqaad ka heshay ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka daawada waxaan ku leeyahay hadii aad rabto kalsooni dhaba inaad hesho oo naftaada aad ku kalsoonaato oo go'aamo sax aad qaadato oo runtii aad maxay guul gaadho maxaa laga rabaa inaad isku xidho ilaahay oo markaas isweydiiso arintaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma ogol yahay raali markaas waxay manaysaa kalsoonidii dhabta ahayd inaad hesho wax kasta oo ku dhaqaajinaysa marka wax ku hor istaagi kara haba yaraatay